tiraahdi googorada asagaa iga siibay kastuumada asagaa iga siibay rajabeetaan xarnaama siidin nin kalaa toori la soo baxay runaa isku sheegnaa mise been ninkan iyo adiga heshiis baa idinka dhexeeyey muddo 3 biloodana anigu marka aan been iska dhowro ilaahay ka baqo waxaa laga yaabaa in aad adigu jeclayd ood kor ka jeclayd ood raadinaysay oo aad rabtay isaguna uu gabadhaada jeclaa sheego waxaa lagu kufsan karaa markii dhafoorada lagaa garaacay markii toori lagula dhacay markii cajaradaada la jeexjeexay markii feer lagugu jahwareeriyey ood miyir daboolantay oo labada dhafoor feer lagaaga garaacay abaayo ood miyir daboolantay oo aadan isdifaaci karin oo maskaxdaada iyo miirkaaga maqan haa waa lagu kufsan karaa oo goroc ilaa waliba hoosta lagaaga soo xirtay haddaanu dumar laanahayn annaga lugahana waanu ku dagaalanaa gacmahana waanu ku dagaalanaa ilkahayagana waanu ku dagaalanaa ilkahayaga ninaanaan rabin oo aanaan doonaynin oo aanan anagu raalli kahayn nooma imaan karo korkaygana ma taaban karo noomana soo dhowaan karo nin aanan anagu guursan oo aanaan rabin oo aanaan raalli kahayn abaayo oo aanaan rabin in aanu maxaan ku iraadaa wax la samayno nama kufsan karo marka aan runta kuush waabase adigoo hooyo weyn ah waa adigoo hooyo weyn oo waayo aragoo wax badan meeshaan wax kalaa ka jira ninkan iyo gabadhanu waxaa dhici karta ninkan gabadhanu inay jeclaatay oo jacayl dhaafa u qaaday isaguna uu iska dhaqaalayn jiray una dabacsanaa una jilacsanaa hooyo Soomaaliyeed oo dhaqaalayn jiray talabaad waxa meesha ku jira kaaga sheekeynay waxaa dhici karta ninkan inuu hooyadan gabadheeda rabay waayo ninkan hooyada ma shukaansanayna gabadhay hooyadu dhashay baad wuxuu shukaansanayay gabadhay waa tasheegaysa hooyo ka soo tag hooyo ka soo dhuuma hooyo ka soo bax hooyo ka imow hooyo ka soo tag ayuu lahaa yaa gabadha yar bay ahayd wuxuu shukaansanayay sida ay warka si fiican u dhageysta hooyadanina waxa ay ku leedahay maadaama uu tiktoble iyo yahay wiilkayguna iga xiraa wuxuu yiri lacag baan ku siinayaa $10,000 baan ku siinayaa haddii ku yiri abaayo hadaad hooyo qiimo la tahay hadaad hooyo sharaf la tahay hadaad hooyo xishoonaysa tahay hadaad hooyo sariig la tahay hadaad hooyo muslimna tahay horta ninka gurigiisa ma aadeen ninkay gabadhaada rabay ninbaa isaaqa wuxuu yiri baa la yiri intuu arkay hooyo gabadheeda islaag oo maqaayad wada shidaya oo wada shaqaysanaya hooyadii gabadheeda raggu waa bahal markaasoo gabadheena dhinac u shukaansaday hooyadiina dhinac u shukaansaday markaasay ninkii habartii baa marka soo raadsatay baa la yiri gabadh yareed baa xishootay oo carartay oo tira adeerow nin weyn baa taa anaga meesha shaqa u nimidna qaleeyo nadaa habartii baa marka soo raadsatay odayga oo u timid markuu tagayo wuxuu ku yiri dukaanyahow sabiibkiyo sisinta gadaabo yiri saciyo weeshu misku socorba waa maama Soomaaliyeed ruuxooy bay ka dhacday wuxuu yiri dukaanyahow sabiibkiyo sisinta gadaa saciyo weeshu misku socorba waxaa la yaabanahay hooyo adigoo hooyo ah oo wiilkaaga xiran yahay oo Liibiya ku xiran yahay oo beerka ku xanuunayo oo qalbigu dhaawac ka yahay oo adigoo dhan gargaryariisid oo iska dawlan hooyana waa dareemayna markuu wiilkeeda hooyo ka maqan yahay ama gabadheeda ka maqan tahay oo dhibaato haysato hooyana hooyada waa dareemayna oo gargaryaraya hooyoy oo ilmahaaga yara wiilkaaga curadka wax xabsi jiro hooyoy seebay kaaga suurta gashay inaan nin gurigiisa u tagtid oo gabadhaada darteeda uu ku dhaqaalinay oo gabadhaada uu rabay oo gabadhaada uu u socday waxa ka qaldan marka hooyoy hadaad hooyo muslim tahay oo hooyo islaam tahay oo hooyo damiir la tahay oo hooyo iimaan la tahay oo hooyo xishooniya tahay saaka waxa social media ma la iimaan lahayn ilmahaaga qalbigooda aad u naxil lahayd ilmahaaga maskaxdooda aad u naxil lahayd ilmahaaga dareenkooda aad u naxil lahayd ilma yaryar baa isna wuxuu leeyahay ilma yaryar baa jiifa ilmihii korkoodii dhinacoodii kitaabkii jaamaca quraanka inta la soo baxay gurigii islaameed gurigii daahirka gurigii caruurtu joogtay buu kitaabku dhex maraya oo dood ku galaya oo maro ku gal qol kale ma tahaysatay miya war qolka ilmuhu ku hurdaan mahana qol kale oo ragga kula qaadatid oo ku hadashid oo isku difaacdid war ma haysatay miya war ma ogdin miya ilmuhu inay dheeman yihiin war waxan waa laba xawayaan weeye ninka iyo naagtuba waa laba xawayaan wallaahi inaanan midna u hilinayn ayaduna ilmeed bay maskaxda wiilkaaga saaka muxuu ku nool yahay marka aad tiraadid waa la ikufsaday wiilga yar oo dhali kara ikufsaday gurigiisa ugu tagay maxaa gurigiisa ka jiro ka raadis maxaa ka jiro hooyo gurigiisa oo ka raadis maando wiilkaygiyo hadaad wax tarayso oo caawinayso maando